toban shay oo aad u baahan tahay inaad ku ogaato ragga iyo dumarka gaar ahaanna kuwa isqaba ee lamaanayaasha ah. kow, raggu waxay u baahan yihiin oo jooga $1 ayay ku bixiyaan $2 si ay u helaan waxaas, meesha ay dumarku ku bixiyaan $1 wax jooga $2 oo aysan u baahnayn. 2, dumarku waxa ay ka walwalaan mustaqbalkooda ilaa ay nin ka helaan. walwalka ragguna waxa uu bilowdaa marka ay naag guursadaan. 3, ninka guusha gaaray waxaa lagu yaqaanaa inuu yahay nin shaqayn kara lacagta ay xaaskiisu isticmaasho ka badan. gabadha guusha gaartayna waa tan heli karta ninkaas aan soo sheegnay. 4, haddii aad rabtid ninkaaga inaad farxad kula noolaatid, isku day wax badan inaad fahantid oo aad wax yar jeclaatid. si aad naagtaada farxad ugula noolaatid, wax badan jeclow, hana isku dayin inaad fahanto. 5, ragga xaasliyaasha ayaa ka nolol dheer kuwa aan guursan, laakiin xaasliyaasha iyaga ayaa geerida aad u jecel. 6, nin walba oo xaaslo ah waa inuu iska iloobaa qaladkiisa, sababtoo ah waxay taraysa ma lahan 2 qofood oo isla jooga haddana qalad wada xasuusan. 7, raggu waxa ay hurdada ka soo toosaan iyagoo sidii xalay quruxda badnayd u seexday, laakiin dumarku waxa ay soo toosaan iyagoo wax ka qaldamay. 8, dumarku marka ay ragga guursadaan waxay isdhahaan ninkaas wuu isbedeli doonaa, laakiin isma bedelo. raggu marka ay guursadaan waxa ay isdhahaan qoftaan marnaba isbedeli mayso, laakiin way isbedeshaa. 9, dood walba dumarku iyagaa leh hadalka ugu dambeeya. haddii ay raggu erey kala dhahaanna waxa ay noqonaysaa hadda iyo bilow kale oo cusub. 10, ragga laba marba ma fahmaan dumarka markay guursadaan iyo inta aysan guursanba. haddii uu kusoo gaaray like-da muuqaalka siina share garay, sidoo kalena waxaan idinka codsanaynaa asxaabta inaad follow soo dhahdaan Instagram-ka waa uu cusub yahay, hadda kala kiciya adigoo raacaya profile linkiga. mahadsanid.